السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولاله قال يا كسر هذا عشر كينا مانتا نحكوسها بسنة هاي مجعيل وامحي مجعيل مجعيل كوا إري جلابوس كمجعة وإري جلابوس كنون فريسكا وإري جلابوس كنون كلوسكا إيوه وإري لو استعمال كرام وإري جل كرا يعني الجملة دويدل سو مركا مجعيل كستوحولية هاي clear antecedent antecedent عاد ayuu leeyahay that means يعني antecedent waa erey u taagan يعني magacyaalka maanta cashirkeena waxaan yani wuxuu ku saabsan yahay waa maxay magacyeel soo marka the pronoun magacyaalku yani magacyaalka asaga wuxuu noqon karaa qaybo fara badan qaybo kala duwan ayuu markaa noqon karaa waxa laga yaabaa magacyaalka yani waxa kamid ah inuu noqdo personal pronouns demonstrative pronouns relative pronouns interrogative pronouns iyo kuwa kale markaa kala duwan sida indefinite pronounka reciprocal pronounska qayb fara badan ay markaa magacyaalka uu noqon doona insha Allah mid ayaan u qaadanaynaa soo marka magacyaalka waxa kamid ahaan kara I me he she it herself you that they each other few many several who whoever someone everybody etc يعني magacyaalada kale oo kala duwan kuwa singular noqonayo kuwa plural noqonayaan kuwaas waxa la isku dhahaa marka magacyeel so marka what is a pronoun waa maxay magacyeel pronoun is a word used in a place of a noun phrase a noun clause and a whole sentence magacyaalku waa erey gala booska magaca booska noun phrase-ka booska noun clause-ka iyo jumlada oo idil pronoun magacyaalku is a word waa erey used in a place of a noun ereygaas oo loo isticmaala goobta magaca a noun phrase goobta noun phrase-ka yani noun hadda waa naqaanaa oo cashar dhan ka soo bixin noun-ka magac waa maxay laakiin phrase maanta waxa laga yaabaa inuu nagu cusub yahay soo marka phrase-ku yani waa koox eraya ah kuwaasoo aan lahayn subject iyo fal macna buuxdana aan sameyneynin kuwaas waxa loo yaqaanaa phrase haddaan dhaho to protect the environment يعني إلا دوره أما إلا على deegaanka ama bi'ada qofka yani dhagtiisu way taagan tahay oo waxa la isdhahaa ninka wuxuu sheegi doonaa soo marka maanta jumladan subjectina ma lahan falna ma lahan macnana ma sameynaysa yani dhameystir u baahan tahay soo kaas waxa loo yaqaan marka phrase halka clause-ku asagana waa koox eraya ah kuwaasoo leh subject iyo fal macna buuxo sameynaya jumladane keligooda marka istaagaya soo marka magacyaalku waa erey gala booska magaca booska noun phrase-ka booska a noun clause-ka and iyo a whole sentence iyo jumlada oo idil qeexitaanka magacyaalka marka waa kaya we use a pronoun when we don't want to repeat a noun in a sentence or in a longer piece of writing waxaynu isticmaalnaa magacyaalka marka aynu rabin inaan ku soo celcelino over and over again a noun in a sentence يعني in badan marka aan rabin magaca inaan jumladan ku soo celcelino ayaan markaan isticmaalnaa or ama in a longer piece of writing mise marka aan rabin qoraalkeena inuu dheeraado markaan rabin ayaan magacyeel isticmaalnaa soo marka every pronoun magacyeel kasta must have inuu lahaadaa clear antecedent يعني antecedent cad marka inuu lahaadaa antecedent waa maxay the word for which the pronoun stands ereyga magacyaalku u taagan yahay ayaa waxa la dhahaa antecedent oo sideen ku fahmeena jumladan asla fiirino tusaale ahaan qof wuxuu dhahay Omar told me Omar was going to Mogadishu yani Omar wuxuu ii sheegay aniga Omar inuu u sii socday magaalada Muqdisho inuu u sii socday ayuu marka Omar aniga ii sheegay maanta jumlada waxaan ku soo celinay Umar yani dadku ku caajisayaan hadii maanta Umar aan dhaano soo marka si qurux badan waxa waaye Umar told me Umar aniga wuxuu ii sheegay he was going to Mogadishu yani asaga inuu u sii socday magaalada Muqdisho maanta waxaan keensanay he soo marka magacyaalkan he wuxuu matalayaa booska magaca Umar ayo marka asiga matalayo booska magaca hadda yani qaabkaas loo isticmaalaa hadda wasala faana filaa magacyaalku waa erey gala yani goobta magaca hadda Umar jumlada laba Umar meesh ku qorneed yani midda dambe ayaan bedelnay oo he ayaan dhaanay soo magac booskaas oo gala so the pronoun he yani magacyaalka he in the second sentence jumlada labaad ku jira helps us wuxuu naga caawinayaa mise wuxuu naga saacidayaa anaga to avoid the repetition of the noun Umar يعني إنن كفوجان كل علنت مع عمر إنن كل علنه
ayaa markaa magacyaalkaas loo isticmaalaa si aan ugu fogaano mid xigta he talks in a funny way asaga wuxuu u hadlaa qaab shactara ah I don't like aniga ma jecli it yani magacyaalka maanta it wuxuu matalayaa yani qaabka shactarada ninkaas ayuu markaa u matalayaa oo ma dhihi karno he talks in a funny way I don't like the way he talks in a funny way jumladaas inaan ku soo celino qoraalkan inuu dheeraado yani waa laga fiican yahay soo marka the pronoun it magacyaalka it and replace wuxuu matalayaa the noun magaca the noun phrase yani noun phrase ka ahna a funny way ayuu markaa u matalayaa mid saddexaad we don't know where they have gone anaga ma naqaano ayaga meeshay aadeen ma naqaano haddana wuxuu dhahay we don't really know it dhab ahaantii anaga markaa ma garanayno wujida so the pronoun it magacyaalka it replaces wuxuu matalayaa the close ka ahna where they have gone yani meesha ayaga ay aadeen jumladaas oo noun phrase ka waxaa matalaya it waxaan dhahnayno we don't know anaga ma naqaano where they have gone yani jumladan waa noun close yani they waa subject and gone hadii yani asal loo celiyo waxay noqonaysaa go subjectna way leedahay falna way leedahay macna way sameynaysaa waa close waa noun close so marka we don't really know dhab ahaantii aniga ma naqaano it maanta u taagan tahay where they have gone so midayna afraad the rain is availed yani roob bada in it means famine taa waxay ka dhigan tahay yani awaara jirta awaara marka uu soo food leh so marka the pronoun it magacyaalka it also stands for sidoo kale wuxuu u taagan yahay the whole sentence jumlada gabi ahaanba jumlada oo idil waxa u taagan it ahna jumladaas the rain is availed yani roob mada in jumladaas oo idil waxa matalayo it ay marka matalaysa wasla faana fila the rain is availed yani roob mada in it yani maadaama roobku uusan da'in it means famine qaabkaas marka la dhahay so therefore sida awgeed a pronoun can be used in a place of a noun phrase a noun clause and a whole sentence sida awgeed magacyaalka waxaa loo isticmaali karaa goobta magaca goobta noun phrase-ka goobta noun clause-ka iyo jumlada oo idil waxaan filayaa inaan isla fahanay aadan u mahadsantihiin